urur siyaasadeedadii maanta taageerayaasha baaxadda leh kusoo bandhigay magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar ayaa waxaa ka mid ahaa urur siyaasadeedka Badbaado oo in ka badan boqolaal taageerayaal ah soo toomiyay fagaarayaasha waaweyn ee magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar. taageerayaasha urur siyaasadeedka Badbaado oo ka badnaa boqolaal taageero isla markaasina sare u dhaafay halkii laga rabay ururada siyaasadda Somaliland ee u asteesay guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda Somaliland 200 oo qof ayaa waxa ay soo tubeen fagaaraha barxadda weyn ee magaalada Caynab. boqolaal taageerayaal ah kuwaasi oo inta badan ku dhawaaqayay gabayo iyo hadallo ay ku taageerayaan urur siyaasadeedka Badbaado. mas'uuliyiinta u sarsaraysa urur siyaasadeedka Badbaado ayaa taageerayaashooda kala hadlay fagaaraha barxadda weyn ee magaalada Caynab halkaas oo ay uga soo jeediyeen hadallo dhiirigelin waano iyo wax isu sheegid isugu jira. haddaba waa kan gudoomiyaha urur siyaasadeedka Badbaado oo la hadlaya taageerayaashiisa. danta galbeedka iska ilaaliya, galbeedka bariga iska ilaaliya, hada min shaydaan weeye. nabigu wuxuu ducuuha fa innaha muntina iskaga tagay qabyaaladu waa xun. waxaan rabnaa haddii ay ka dhigo in wadanka la bedelo oo shariicada islaamka lagu dabaqo oo talada loo hagaajiyo oo nabadgelyo la keeno oo dadku cadaalad baa deeqda. qabyaaladu ma deeqda, cadaalad baa deeqda, cadaalad baa deeqda, cadaalad baa deeqda, cadaalad loo keeno nabadgelyo inaga gudaheena iyo dadka jaarka ah iyo cid walba nabadgelyo inaynu siino. waxaa loo baahan yahay inaynu keeno wada tashi in la keeno la rabaa, ummadda in lala tashado oo talada laga qayb geliya la rabaa. waxaa la rabaa hidimo in la keeno, waxaa la rabaa horumar in la keeno. ummadaha madax fiican hela sida Turkiga oo kale horumar bay ku sameeyeen, 10 sano ay ku gaareen meel horumar. inaguna saas oo kale waxaan himalaysanaynaa haddii Ilaahay ka dhigo nabda intaynu qaadano inaynu ku shaqayno, qabyaaladda iska dhowrno, qabyaaladda ka tagno. ilaahay subxaanahu wa ta'aala qalbigeena aynu ilaahay u soo noqono toobad keeno oo aynu gacanta isqabsano oo wadanka wuxuu qabano oo shariicada iska xukuno oo ogolaano oo raali ka noqono oo ilaahay ugu maqnaqno nimcada uu siiyay oo ku shaqayno. ilaahay waxaanu leenahay, ilaahay waxaan ka baryay inuu ilaahay guusha inoo siiyo, guusha mar walba guusha ina siiyo. waxaanu leenahay Sheekh Abdullaahi Basho oo ka mid ah shuyuukhda waaweyn ee gobolkan Togdheer iyo dalkan Somaliland ayaa waxa uu isna halkaasi hadallo dhiirigelin waano iyo wax isu sheegid iyo waliba mahadcelin uga soo jeediyay taageerayaasha urur siyaasadeedka Badbaado isagoo ugu mahadnaqay taageerada ballaaran ee dadka ku dhaqan gobolka Saraar u soo fidiyeen urur siyaasadeedkani. waxaa soo kalifay waxay isaga fadhiyi waayeen, waxaa soo kiciyey iimaan baa soo kiciyey, waxaa soo kiciyey isbiirad baa soo kiciyey, waxaa soo kiciyey wixii ay weligoodba ay tamaniyayeen ee ay jeclaayeen ee ay ku riyoonayeen ayay maanta maqleen. marka inay isu soo tiiraan waxa weeyaan waa gartood weeye. si kastaba ha ahaatee markani ayaa markii ugu horreysay siyaasadeedka Badbaado oo urur siyaasadeedka keliya ee ku dhawaaqay inuu dalkani Somaliland ku dhiqi doono diinta Islaamka iyo kitaabkeena suuban ay isugu soo baxaan taageerayaal aad u tiro badan gudaha magaalada Caynab. isku soo wada duub oo xilligan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli ay maanta ay ku soo gabagabowday magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar tirinta ururada siyaasadda Somaliland ee kunka qof. Axmed Hanad Gurey baqaya telefishinka caalamiga ee Bulsha TV Burco Somaliland.